تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجح الدنيا. نبينا صلوات ربي والسلام عليه مال المها كمدا أي وحو soo maray rag laga tamaya nin baa halkaas oo kala jooga in xoog badan oo khatar ah markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam hada warkani muxuu ah waxay rasuulka ilaahay ninka ma aragta ha waa nin lagdaa waay waa nin khatar ah oo halis ah cid loo soo saaro ma jiro oo laga tankiisa u soo baxa ma jiro ilaa uu lagdaa wax ka reeyaa la laayahay rag isu tag nin walba isku day caasha la isgeli ninkaasi wax lagdan lawaaba li rasuulka ilaahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam war ma idin sheegaa ninka xoog badan yaa ninka adag ma idin sheegaa ha loo sheeg rasuulka ilaahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxa ka adag kana xoog badan nin dulmiyay ruux dulmiyay markuu dulmiyay kadibna cadhadiisii qarsaday oo aan ka ficiloonin oo aan ka argoosanin oo cadhadiisii qarsaday oo isagu isku ekeeyay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam sidaana kaga reeyay isagii shaytaankiisina ka reeyay kan saaxiibkii ishayaana shaytaankiisii ka reeyay hal marbu wuxuu ka reeyay tilaabada iyada oo cadhadiisii inuu qarsadaa saaxiibkii iyo cidii dhibaatada u geysatay inuusan ka ficil la qaadanina halka qodob wuxuu kaga reeyay tilaabada kaliya iyo saddex kaga reeyay saaxiibkii horta waa lagdo waa ka reeyay laana wax weyn reyntu ma aha in aad dagaalka ku gacan sareyso ma aha in aad dulmiga ku gacan sareyso ma aha reyntu waxa weeyaan inaad adkaysi leedahay inaad dulqaad leedahay inaad tanaasul leedahay midtaas reynta ah saaxiibkii waa ka reeyay shaytaankiisii dabada ka waday laha argooso war iska celi yaa isagana waa ka reeyay saaxiibkii shaytaankii fogeeyay ee isaga durkiyay inuu soo noqdo u diidayna waa ka reeyay saddex adow buu hal mar lagtay Allahu akbar saddex saaxiibkii oo muslim ah oo isgooyeen khasmigiisa iyo laba shaytaan buu hal mar ka taqallusay ninkaasi iyo ninka hal nin lagday ka xoog badan ninkaas ay leeyihiin ninna kama xoog badna laba nin haday isugu tagaan way lagdi karaan hal nin buu ka reeyaa laakiin ninkani saddex buu hal mar lagday buu nabigu sallallahu rabbi wa sallam alayhi saas daraadem aadaabta baro naftaada bar ku qasab waa wax la barto waay ilaahi tabaaraka wa taala adoomada tabiicada noocaas oo kala qaarna waa ku abuura oo iyagoo ku abuuran bay dhashan dulqaadka samaxaada qaarna way isbaraan waa muktasab way isku qasbaan way iska keenaan marka dambana dabeecay u noqotaa hadii ilaahay ku saayisiiyayna siyaadi hadaan ilaahay ku siinina tabaaraka wa taala baro in dadka la saamaxo muxuu ah mubaadarada la qaato adiga aad noqoto ruuxa saamaxaada raadinaya hatta hadii laga gardaran yahay sida ayaa waxa ina baraya diinteena ina baraysa quraanka kariimka faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin